wax kasta oo ay riyadaadu tahay waxaa mar walba jiri doona dad isku dayaya inay dilaan iyagoo adeegsanaya eray, ficil iyo faallo. dadkani waxay ku dareensiinayaan liidnaansho iyo inaysan xiise lahayn raadinta riyadaada. muuqaalkani waxaan kugu sharxi doonaa 7 nooc oo dadkaas ka mid ah kuwaasi oo riyadaada dilaya. 1. dadka taban ama negative-ka ah, si kale dhanka xun wax ka eega. walow aad og tahay la jirka ama la joogidda dadkan aysan ahayn wax maad ah, waxaa laga yaabaa inaadan ogaan inay saameyn daran ku leeyihiin caafimaadkaaga iyo guushaada. baaritaano cilmiyeed ayaa tilmaamaya tabnaashaha ama negative ahaanshaha ay tahay wax si aad ah la iskugu faafin karo sida cudurrada. xasuusnow, hal faallo ama eray negative ama taban ayaa dili kara riyadaada si fudud, si kastood u tahay qof togan ama positive ku ah riyooyinkiisa. haddii dad taban ama negative ah hareerahaaga joogaan, waxaad bilaabaysaa in adigana aad hadafyadaada u aragto kuwa taban oo negative ah. nasiib darose kuma guulaysan kartid riyadaada haddii aadan rumaysnayn. dhiiranaanta aad u baahan tahay inaad ku qabato waxaad doonayso waxay u baahan tahay inaad ku mashquusho samayntiisa, isla markaana aad ka fikirto inaad ku guulaysan karto waxa aad qorshaysatay. sidaa daraaddeed, marka aad u ogolaato qof dhanka xun wax ka eega inuu faallo negative ama taban kugu soo tuuro taasoo qusaysa riyadaada, waxaad bilaabaysaa inaad ka fikirto inaadan ku guulaysan karin, taasoo ah mid niyajab ku ah riyadaada. 2. kuwa cabashada badan waa dadka had iyo jeer ka cabanaya sida ay noloshooda u xun tahay ama shaqadooda aysan u wanaagsanayn. waxay si joogto ah uga cabanayaan wax walba, laakiin weligood waxba kama qabtaan duruufahaas haysta. inaad ag joogtid qofka cabashada joogtada ah leh waa mid ugu dambayn dhibaato ku noqon karta ama dhibaato kugu noqon karta. waxaadna bilaabi doontaa inaad ku biirto dadka cabashooyinka badan oo xitaa aadan ogaanin inaad qaadatay hab la mid ah fikirka saaxiibkaa taban ama negative-ka ah. haddii ay noloshaada qayb ka yihiin dadka noocyadan ah, hubi inaad yarayso wakhtiga aad la qaadato. 3. kuwa dhaleecaynta badan. runtu waxay tahay inta badan dadka waa kuwa dhaleecayn badan. waxay noloshu ku qiimeeyaan sax iyo khalad beddelkii ay dunidu ka eegi lahaayeen dhanka wanaagsan. marka ay aragtidaada ka duwan tahay midooda, waxay si degdega ula soo boodayaan dhaleecayn iyagoo kuu sheegaya sababta aad ku qaldan tahay. marka riyadaadu la wadaagto dadkan, waxay la imaanayaan fikrado caqligal ah kuwaasoo kaa yeelaya inaad u aragto in riyadaadu tahay mid aan macquul ahayn, kadibna aadba iska tuurto. waxay kugu qancinayaan inaad ku raacdo fikradooda iyagoo dhaleecaynaya midaada. inta badan dadka dhaleecaynta badan waa kuwa ka yimid meelo cabsi ka jirto. waxay ka fikirayaan, ka waran haddii qofkaasi ama qoftaasi guulaysato, dabcan anigana waxaan u ekaanayaa mid guul daraystay marka loo eego xaggooda. laakiin taasi waa dhibaatadooda, maahan mid adiga ku haysata. sidaa daraaddeed, waa inaad isku daydaa sida ugu wanaagsan inaadan ku raacin cadaadiskooda, waayo haddii aad ku waafaqdo waxay burburinaysaa riyadaada. 4. kuwa xadkooda ku xiran. aan sii falanqeeye, kuwani waxay ka mid yihiin kuwa ugu daran ee riyadaada dilaya. yeelkeeda waa kuwa aan si fudud lagu garan karin. waa dadka aan tallaabo u dhaafin xuduuddooda ku xeeran oo keliya. sidoo kale waxay kugu dhiirigelinayaan inaad samayso si la mid ah. waxay inta badan kugu waaninayaan inaad ku dheganaato shaqadaada maalinlaha ah ee 8 saacadood iyo wixii la mid ah, beddelkii aad abuuran lahayd wax adiga kuu gaar ah. ma lahan wax riyo ah oo ay daba socdaan, mana ahan kuwa diyaar u ah inay sameeyaan wax ka soo horjeeda xaaladda ay ku jiraan. si fudud kuwan xadkooda ku xiran waxay u nool yihiin sida robotka oo kale, inay soo kacaan 40 saacadood ka shaqeeyaan isbuuc kasta, shaqo ay necab yihiin, guriga ku soo laabtaan, cunaan, kadibna seexdaan, sidaasna ay sii wadaan toddobaadka xiga. waa kuwa fulay ah, aan jeclayn inay ka baxaan aaggooda raaxada, waxayna kugu abuurayaan cabsidooda haddii aad la wadaagto riyadaada weyn. dad badan ayaa ku qanacsan sidaas, mana ahan wax xun, laakiin qof ceelsanaya riyadiisa kuma qanci karo nolosha caadiga ah. sidaa daraaddeed, waa inaad ka digtoonaataa dadka xadkooda ku xiran. 5. kuwa shakiga badan. noocyada dadkan waa kuwa niyaddilayaal ah. waxay dhegaysanayaan riyadaada, laakiin waxay noqonayaan kuwa ugu horeeya ee kuu sheegaya inaysan ahayn fikrad wanaagsan, waxayna kugula talinayaan inaadan rajo weyn dunida ka yeelan. kuwan shakiga badan waxay aaminsan yihiin haddii dhammaan ilaha qorshayaasha aysan caddayn inaysan hawshu u qalmin in la bilaabo. qof daba ordaya riyadiisa maahan mid dhiirigelinaysa. shakiilayaashu waxay burburinayaan riyadaada, waxayna ku dareensiinayaan
in riyadaadu aad ugu weyn tahay in lagu guulaysto. Xikmad laga hayo filosof Amerikaan oo lagu magacaabo Susie Kasim ayaa oranaysa shakiga wuxuu dilaa riyooyin badan in ka badan inta guuldaradu disho. sidaa daraaddeed inaad ka dhex aqoonsato shakiilayaasha kooxda aad inta badan waqtiga la qaadato waxay faa'iido badan u tahay adiga iyo guushaada mustaqbalka. waa muhiim in guushaadu ay ku hareeraysan yihiin dad kugu dhiirigelinaya inaad ceyrsato riyadaada. 6. Kaftan xumeeyaasha. Forjadu waa nooc kale oo ka duwan dhaleecaynta. waxay u muuqataa maad iyo ciyaar. waxay xitaa u muuqan kartaa in qofka ku caawinayo, maxaa yeelay intay kugu dholo caddeeyaan ayay ku dhahayaan waan kaftamayay. laakiin badanaa waa dhaleecayn qarsoon. inaad dhaleecaynta ka dhigto forjo ama kaftan weli waa dhaleecayn. kaftan xumeeyaashu inta badan waa saaxiibada kugu dhowdhow. marka aad u sheegto riyadaada adigoo isku dayaya si caqli gal ah, waxay si kaftan ama jees ah kuu sheegayaan in hadafyada aad dejinayso inaysan ahayn wax suuragal ah. aan wax ka barano Robert Goddard oo ahaa injineer Mareykan ah. intii uu ku guda jiray hawshiisa waxa uu forjo iyo jees kala kulmay dadweynaha, taasoo ku aadanayd daraasadiisa sida loo dhisayo gantaal cirka aadaya. waxa uu doortay in hawshiisa ku sii wado meel private ah ama gaar ah, taasoo ka dheerayd meesha ay joogaan dadka, gaar ahaan wariyeyaasha. 16 Maarch 1926 Robert waxa uu ku guulaystay inuu riyadiisa xaqiijiyo isagoo sameeyey gantaalkii ugu horeeyay cirka loo gano. sidaa daraaddeed aysan ku niyad jebin kaftan xumeeyaasha ama kuwa jeeska badan. beddelkeed aad meel gaar ah oo aad hawshaada ku qabato. 7. Dadka naftooda kaliya ka hadla. waa koox dadka ka mid ah oo inta badan ka hadla naftooda, kuwaasoo aan marnaba ku tusayn daacadnimo iyo xiise ay ku dhageystaan naftaada. mar kasta oo aad isku daydo inaad fikrad la wadaagto kooxdan, waxay durba la soo boodayaan hadalka iyagoo kuu sheegaya khibrad ay u hayaan arrintaasi. marna kuma ogolaanayaan inaad dhammaystirto fikradaada ama hadalka. waxaa ka mid noqon kara saaxiib mar kasta talo u raadinaya dhibaatooyinkiisa aan dhammaadka lahayn, laakiin aan marna ku weydiinayn wax adiga kugu saabsan. nooc kasta oo ka mid ah kooxdan oo aad la kulanto ka taxadar, hana u dareemin inay dembi tahay. inkastoo ay yihiin dad hadal badan, ha yeeshee inkiraadaada ayaa saameyn ku yeelan doonta hadalkooda badan, maxaa yeelay ficiladooda waxay dilayaan inaad raacdo riyadaada si la mid ah hadafkaaga. haddii aad danaynayso xiriirka idinka dhexeeya, isku day inaad u sharaxdo. haddii ay isku dayaan inay isbedelaan, weli waad la socon kartaa. haddii kalena iskaga dhaqaaji ka hor intaysan riyadaada burburin. inaad maskaxdaada ku borgolaamiso inaad la noolaato riyadaada waa wax fudud, laakiin dad badan ayaa ku guuldaraystay arrintaas, taasoo ay ugu wacan tahay saameynta ay ku leeyihiin kuwa riyooyinkooda dila. haddaba qofna ha u ogolaan inuu riyadaada dilo. waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. fadlan la wadaag asxaabtaada, iskuna day inaad like tiraahdo, isla mar ahaantaasna aad rukumato kanaalkan. mahadsanidin.